كلجين كلميانه كلمية وغردا كلميانه كلمية وغردا manaa ka mid ah shacbi weynaha kala duwan ee ku dhaqan waaxaha kala duwan ee ka kooban tahay meeladan iyo boorama ee Sheekh Cismaan Sheekh Ali Jawhar Sheekh Ahmed Salaan iyo sidoo kale Sheekh Makaahil ayaa waxay maanta munaasabada kala duwan oo lagu xusayo xuska maalintii shanaad ee ololaha kaambiinka doorashooyinka madaxtooyada Xisbul Haakimka kulmiye ku qabteen barxadaha kala duwan ee xaafadahaasi maanta aynu taaganahay waa maalmihii u dambeeyay ee aynu codkeena ku hubsan lahayn sanduuqa xisbiga kulmiye walaalayaal waxaan aad iyo aad idinku dardaarayaa inaad kaarkina xajisataan waqtigu uu inoo soo dhawaanayaa codayntii way inoo soo dhawaanaysaa waxba inoogama hadhin hal ayaan baa inaga inoo hadhan oo khamiista ah oo aynu ku muujinayno dareenkeenna isku soo bax aad u ballaaran waxaan idinka codsanaynaa isku soo baxa aynu muujinayno iyo cududda aynu muujinayno codkeenuna inuu uga muuqdo sanaadiiqda ay nala tartamaya Cabdiraxmaan Cirada miirkiisu waxa weeye ninka geeridii saaxiibkii Cabdiraxmaan Taryalle isagoo dul taagan oo in la taagan yahay oo qabriga dul joogo ciidintu soo qaaday igu sawiray yiri weeye ma ninkaas aad dooranaysaa waxaan leeyahay oon ka daba tagayaa dumarka ku kaambeen garanaya qabiilka maanta way idinka arkayaan igi cadoosh wanaga iskala joogna maxaa noo soo arki waayay maxaa qabiil loogu sheegi waayay been bay sheegayaan ilaahay kama baqayaan ubadkay raad ku reebayaan magaalada Burco waxa ka hadlay ninkii loola jiray xirsi wuxuu yiri xisbigu isagu la soo maartay ragii maalintii anagoo ubaan saynay ka hadli jiray ee ku faalayay maanta kalmadaha maanta ku soo daray wax laga yaqsoodo weey wuxuu xisbiga kulmiye wuxuu u socdaa Soomaaliya waxa la sababo abuuri labada gacmood ay salaamaya haddii talo markuu joogay diyaana taas oo isagu aan ogeyno ay laba gacmood inay ku jirtaan oo midnimadu ay tahay ka dadka dhexdeena waxay ku tusaysaa isagu inuu wado inuu Soomaali weyn tago waxaan maanta halkan fursadan uga faa'iideysanayaa inaan dhalinyarada aan ka dardaaro in ay ka fogaadaan qabyaaladda waayo qabyaaladdu maanta wad ogtiin halka ay marayso in layna kala qoqobo in macnihii wax kale laynoo sheego 13 November iyo xisbiga kulmiyeen codkeena sanduuqan kuubsana soo saamaa odayaal baa la xilxiray kuwii ugu dhawaayay ergada loogu soo diray xukuumaddu soo dirtay ay ahaayeen cid kale ma xilina haday xidhay waxa xidhay oo basaasay oo tilmaamay wasiirada qaarkood kuwa gobolka ka soo jeeda ragii katiinadaha ka jirtay ahaayeen yaa been la idin sheegin waxaynu nahay kulmiye codkeenu waa kulmiye laga doonayaa sidii horeba ay lagu ballansanayn ee muhiimaddu ay tahay waxa weeye xisbigii waxqabadkeed kulmiye ee ka tirsanaydeen eed u soo dadaalayseen eed u soo haraadeen eed u soo daasheen aad baan idinku mahad celinayaa aad baad u mahadsantiin taageeridiina aad xisbiga kulmiye ku taageeraysaa sida mugale eed u muujinaysaa taageeridiina waan idinka mahad celinaynaa xaafadda reesha Cismaan waa wanka waxa weeye isku soo bixiin waa wanka وعبد الله داهر وعستيفيق عالمي قصاب مقالة بورما